waxaa jira dambiyo badan oo Soomaaliya ka dhaca isla markaana ay geystaan dad Soomaali ah laakiin ay bulshadu u aragto inay dhaqan xumo tahay in laga hadlo ama la sheego mararka qaar waxaana taa lagu saleeyaa halku dhiga ah u ceeb astur taasi waxay keentay inay adkaato in xal laga gaaro yareynta dambiyada kufsiga iyo xadgudubyada kale ee jinsiga uu ka mid yahay toddobaadkii hore ayaa waxaa mar kale baarlamaanka loo horgeeyay hindisa sharciyeed la xiriira dambiyada jinsiga waxaana gaashaanka u daruuray oo si carale uga hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka baarlamaanka ka sheegay horta ummadda Soomaaliyeed akhlaaq ay leeyihiin hadallada qaar xitaa siiqada loo qoro in laga fiirsadaa fiican sidoo kale waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Muudey oo sheegay in sharcigan yahay mid aan ku salaysnayn islaamnimada in loo fahmaa maaha dimuqraadiyada la sheegayo maba aqoonsanid aniga waxa la yiraahdo dimuqraadiyad diinta islaamka dhigaysa dib loo fiiriyo oo qaadan diinta loo lahayn hal soo barto qof kasta oo muslim ah waxa waajib ku ah in diintiisa u barto ma ilaahay idin ku dhaariye gudoomiyaha wuxuu ka hadlayay ma wax in la yimaado laga sheegi kara ah miyaanan xishoonaynin horta anaga miyaanan diin lahayn islaam ma nihin miya sababta loo daba taagan yahay sharcigaas wasakhda ah horta ma loo sheegi karaa sharcigan oo konton iyo koob ka kooban ayaa si wanaagsan u faahfaahinaya waxa uu yahay kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada sidoo kalena waxa uu xusayaa sida loo wajahayo marka ay dhacaan dambiyadan iyo qaabka loo marayo marqaatiyada kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada jinsiga ayaa ah mid waayadan ku soo badanayay dalka Soomaaliya waxaana doodana ay dhacaysay 2 cisho kadib markii magaalada Muqdisho kufsi iyo dilba loogu geystay gabar dhalinyaro ah oo sanadkan uun ka baxday dugsiga sare xildhibaan Sahra Umar Maalin oo kamid ah xildhibaanada sharcigan taageersan ayaa ka waramaysa waxyaabaha sharcigan lagu durayo oo ay kamid tahay ereyada loo adeegsaday waxa kaliya kaalintooda ay ka leexleexanay waxay tahay ereyada la isticmaal ereyada Maxamed Mursal waa kulli mid xaq u leh male qodobkan maxaa ka wadaa waa in la yiraahdo wasiirada ama anaga markii loo soo gudbo wax ku daranaya maxaa ka wadiin qofka markaas inay ka jawaabto in la mala awaalo ma haboono si wax looga qabto dhibaatada taagan gaar ahaan xadgudubyada uu kufsigu ka mid yahay waxa dad badan muhiim ay u arkaan in la sameeyo sharciyo lagula tacaalo ama lagu qaado kuwa geysta falalkaasi sidoo kalena si sharciyadaasi loo sameeyo waa in la qeexaa dambiga iyo noocyadiisa kala duwan su'aashu waxay tahay sida loo asluubeyn karo qoraal sharciyeed iyadoo aanan la tilmaamin xubnihii gaarka ahaa iyo qaababkii kufsiga Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaana qabayn caqabada ugu weyn ee hindisa sharciyeedkani ahaa ereyada loo adeegsaday ama lagu qoray baarlamaanka waxa saraxatan uu uga hor yimid sharciga markii la keenay ee kufsiga waxay ahayd bilowgii horeba in cinwaanka hindisa sharciyeedka uu watay inuu noqday mid aanan u cuntami karin in si wiqaaxadaasi oo leh looga hadlo oo ay ahayd waxa aanan runtii u cuntamin in baarlamaanka Soomaaliyeed oo dhan isaga inta uu fariisto waxa uu ka hadla maalintaasi ay noqoto galmo iyo sharci oo intaasi asaga xambaarsan wixii markaasi ku hoos qarsanaane gudaha marka aad fiirisid ayadoo ay yihiin wax markaasi aan ku wanaagsaneen ereyada iyo asaaliibta la adeegsaday waraal ahaan waxa ka hor imaanayo dhaqanka Soomaalida ee suuban iyo shariicada islaamka sidaa aawadeed ayaa bilowgiiba marka cinwaanka sharcigaasi loo diiday in ajanda uu u noqdo baarlamaanka abukaata tahliil xaaji Axmed oo soo qoray sharcigan isla markaana kamid ahaa xaakinadii Soomaaliya sanadadii 80-aadka ayaa sheegay in xeerka ciqaabta dalka uu qabo in fal dambiyeed walba la qeexo iyadoo aanan laga gamban karin in qof walba uu fahmo dambiga nuuciisa sharciyada wadanka marka la qeexayo falalka dambiga noqon kara waa laga maarmaan in aan shaki lahayn loo qoro si qofka dambiyada noocaas oo kala gala tallaabo looga qaado waxaa kaloo jirta mabda'a la yiraahdo sharciyada principle of legality oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkiisa koowaad qofna lama ciqaabi karo haddii aan si cad sharciga loogu cadeyn
falka xaaraanta ah ee ciqaabta lagu mutaysanayo. marka sidaas daraaddeed dhinaca sharciga waxaa lagama maarmaan ah in mar kasta la caddeeyo. marka qodobka 4aad ee lagu noqnoqday wuxuu sheegayaa falalka xaaraanta ah ee ay lagama maarmaan tahay inaan si aan shaki lahayn sharciga loogu qoro. maxaa yeele sharciga wuxuu leeyahay qodobka 1 xeerka ciqaabta lama ciqaabi karo fal aan si cad loogu caddayn sharciga. marka dhinaca sharci qorista dadkao dhan inay khubaro noqdaan maaha, waxayna laga maarmaan ahayd marka noocaas oo kale la samaynayo. waxaa jirta jaamacadda ummadda soomaaliyeed jirta oo jaamacad dowladeeda way wacan karaan oo khubarada inay u fasiraan maxaa loola jeedaa waxyaabahan sida cad loo wada caddaynayo. teeda labaad, sidiisa ahaanba sharciga galmada waxaa looga tegaya falal anshax xumo ah, sheegistoodana maaha ceeb, sharciga ceebku maaha, waxay ceeb ku tahay samaynteeda qofka ku kaca falkaas. eedaha ugu badan ee sharcigan loo soo jeediya ayaa ah ereyada cadcad ee tilmaamaya xubnaha gaarka ee qofka iyo qaababka kala duwan ee kufsiga, waxaana muuqatay in nuxurka in laga hadlaba aanan loo gudbin. abukaata tahliil ayaa sidoo kale aan weydiiyey bal haddii ay jirto qaab kale oo loo qori karay sharcigan maadaama xildhibaanada qaar ay sheegayaan inuu ka hor imanayo shareecada islaamka. qur-aanka laftigiisaa sheegay markuu ka hadlayay qowmaluud oo kale waxay samaynayeen faaxisha inay samaynayeen. af soomaaliga sidiisa ahaan oo sharciga ku qoran yahay, xildhibaanadan iyo cid kastaba waa inay ogaadaan hal shay. 1972 markii lasoo keenay af soomaaliga waxaa la dhashay in la sameeyo ereyada qaanuunka, maadaama qawaaniinta ay ku qornaayeen talyaani iyo ingiriis iyo carabi, in la sameeyo erey bixin qaanuuneed oo soomaali ah. waana la sameeyey sharciyadii lasoo dejiyey 73 iyo wixii ka dambeeyey dhammaantood erey bixinta loo isticmaalay erey bixin qaanuuneed oo ku saabsan waxawaaye qawaaniinta dalka oo dhan. marka erey bixintaas ay soomaaliya samaysatay waxaa ku jira waxyaabo badan oo cad. marka faaxishaa la sameeyey, faaxisha haddii la sameeye waxay tahay faaxishada fawaaxishka waa badan yihiin in la sheego waayo falka dembiga sameynaya. inkastoo ereyada ku qoran hindisa sharciyeedkan la isku haysto, haddana waxaa meelo kala duwan oo dalka ah ka dhacay kufsi loo geystay caruur, wiilal iyo gabdhaba leh. sidoo kale waxaa jira in isbedel uu ku imanayo qaababkii kufsigaasi berigii hore uu ku dhici jiray oo hadda la adeegsado kufsi wadareed, mid caruurta loo geysto iyo in loo adeegsado tiknolojiyadda casriga ah oo qofka la duubo kadibna baraha bulshada lagu baahiyo, sida ay sharxayso xildhibaanad Sahra Cumar Maalin. sharcigan in la gudbiyo wax weyn oo anaga noo taraya waxa uu gudbaa waxay tahay waagi hore hadda xasuusisay wax yaroo dhifa marmar ee dhici jirtay miyiga iyadoo la joogo ninkaas geel jira ah oo intaasoo sano aan naag arkin inuu inta gabar arko ku habsado kufsada oo dhaqan ahaan looga xaalo dhaqanka markii loo kaca waxaa ku xigtay dadka qaar oo muxuu ahayd magaalooyinkooda meelaha ka banaanka baxsan sidoo kale ku sameyn jireen. ma dhicin weli waxyaalaha la yaab kale waxay tahay oo anaga haweenka darnoo ah waxay tahay waxaa lagu kufsanaya waa gabadhayda, waxaa lagu kufsanaya waa wiilkayga, waxaa lagu kufsanaya waa aniga, waxaa lagu kufsanaya waa walaashay. marka wixii loo kala aabayeelinba okay waxaa jiro marka arrimahaas waxaa keenay daraagiska waxaas la isticmaalaya. daraagiska waaba laga hadlaba. arrinta muhiimka ah oo sharciga anaga aan u difaacnay waxay tahay waxna waa waqtiga hore, waxna waxaa waxa cusub. isfiirinta hadda cajeelada la iska duubaa, waliyo la kufsanaya cajeelada duubaa, nimankii qoslayaan dusha ka saar cajeelada duubaa, hadhowda face waxaa lasoo dhigaa meesha wax laga daawada lasoo dhigaa. hataa waxaa jira anaga case hataa waxaa jirta nin naagtiisa uu ku sameeyo anaga marka dambe arrinta aan galnay. sharcigan ayuu sheegay abukaata tahliil oo isagu qoray inuu yahay mid ilaalinaya dadka taagta daran ee sida joogtada ah tacadiyada ay ugu dhacaan uu kufsigu ka mid yahay. sharcigan muhiimad weyn wuxuu u leeyahay dadka masaakiinta ee dhibaatada lagu hayo. sideed ahaana in laga qarsado indhaha ma aha. dad badan oo isdifaaci karin oo Soomaaliya ah dhibaato lagu hayaa. dadkaas wadanka jooga oo aan Soomaalida ahayn xataa ay ku soo qaxay xataa in lagu samayn karaa laga yaabaa. dadan isdifaaci karin ay faadsadaan dadka falalka foosha xun sameeya. waxaana dowlad loo dhistay wax kale maaha. dadkan awoodda lahayn inay awooddoodii tahay waxay ku dib badbaadinayaan. waliul amriga waxaa laga rabaa inuu soo saaro wax kastoo joojinayo. waxaa kaloo laga rabaa maadaama tayada waxqabashada
ay jiri kasta mar kasta oo dariska way hadli lahaayeen, dadka way hadli lahaayeen. haddaan dembiilaha wax laga qabanayn, qof kastaba wuxuu u qaadanaya in raalli laga yahay. dembiilahana waxaa wax looga qaban karaa sharci cad oo garsoorayaasha si aan shaki lahayn u dhaqangelin karaan. tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee ka dhaca Soomaaliya ayaa inta badan lagu xaliyaa qaab hoose oo qoysasku ay ka xaalaan ama xukunno dil ah mararka qaar, waxaana sida ay qabaan dad badan uusan mugdi ku jirin in baahi weyn loo qabo in la helo sharci lagu xakameeyo isla markaana ilaaliya dhibanayaasha loo geysto kufsiga. kufsigu waxa uu ka mid yahay dambiyada ugu xanuunka badan ee qofka bani aadamka ah loo geysto. Soomaalida qaarkeedna waxa uu ka mid yahay dambiyada aanan laga hadal oo aan kor loo sheegin, ka hadalkiisana la isku ceebeeyo. dhageystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga VOA oonu kaga hadlaynay hindisa sharciyeedka dambiyada jinsiga ee dhowaan baarlamaanka la horgeeyay. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.